kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimana waxaa kamid ah xildhibaano cusub oo qaarkood ay taageersan yihiin filla Soomaaliya oo laga soo saaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Jubbaland arintan ayaana guul kale oo madaxweyne Farmaajo gaaray ka dhigaysa xil uu loolanada kala kulmayo ra'iisul wasaare Roble dhinaca kalena Roble oo amar ku bixiyay in xilka laga qaado General Odowa iyo General Bixi iyo dagaal waji cusub ah oo ka dhex bilowday madaxda u sareysa dalka kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ciidamo xoog la geysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamadaasi oo la sheegay inay difaacayaan magaalada oo ay dhawaan soo weerareen maleeshiyo beeleed taageersan General Xuud kana soo horjeeda maamulka Hirshabeelle arinta ayaana ka dhigaysa in ra'iisul wasaare uu wax saameyn ah ku lahayn dhammaan ciidamada dalka maadaama aysan jirin hal ciidan oo ka marqaata ra'iisul wasaaraha madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo faray ciidanka gorgor ee la geeyay magaalada Beledweyne inay la dagaalamaan maleeshiyada ka marqaata mucaaradka ee weerarka ku ah magaalada Beledweyne iyo xildhibaanada ka soo baxaya maamulka Galmudug oo qaarkood la sii ogaaday iyadoo ay ku jiraan dad caan ah oo isugu jira saraakiil ciidan iyo dad kale oo siyaasiyiin ah qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambeelka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid ra'iisul wasaare Roble oo amar ku bixiyay in xilka laga qaado General Odowa iyo General Bixi iyo dagaal waji cusub yeeshay oo ka dhex bilowday madaxda ugu sareeya dalka xogo hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu aad uga carooday ciidankii lagu daabulay magaalada Beledweyne injineer Roble ayaa isagoo taa ka duulaya waxaa lagu wadaa inuu xilka qaadis ku sameeyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaarkood sida xoguhu ay tilmaamayaan xubno ka agdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay inay jirto wada tashiyo uu sameynayo wasiirka koobaad ee xukuumadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan arinta ciidanka la geeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo jawaabta mudan in lagu dhaqaaqo dadweynaha gaarka ah ee Roble ayaa waxay kulan gaar ah la yeesheen iyadoo injineer Maxamed Xuseen Roble ay u badan tahay inuu xilka ka qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidanka dhulka General Maxamed Tahliil Bixi inkastoo warkan uu yahay mid si hoose aan u helnay haddana waxaa la soo sheegayaa in Roble uu ka careysan yahay mowjado dagaal ee Beledweyne la geliyay iyo ciidanka lagu daabulay maanta iyo go'aan la xiriira uu qaadan doono wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa lagu amray in xilka qaadista labadan sargaal uu soo saaro taasoo ka timid soo jeedinta ra'iisul wasaare Roble haddaba arrinkan ayaa ka dhigan in ra'iisul wasaare Roble uu ku guuldareystay dagaalkii uu kala jiray madaxweyne Farmaajo maadaama uu gacanta ugu jirin hal ciidan oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ha ahaatana basagida ciidanka xoogga dalka iyo asluubta midnaba ma jiro hal ciidan oo isaga gacanta ugu jira ama ka amar qaata wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga ayaa ah kuwa maqaar saar ah oo aan awood u lahayn inay xitaa tagaan wasaaradda gaashaandhigga iyo midda amniga intaba Roble ayaa isagoo indhihiisu shanta yihiin waxaa ciidan laga raray magaalada Muqdisho gaar ahaan airport weyn ee magaalada Muqdisho Adaacadda International Airport iyadoo laga dejiyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ra'iisul wasaare Roble ayaa awoodiisa ku soo koobantay kaliya inuu qoro warqado iyo in uu heshiisyo aan macno lahayn la saxiixdo dowladda shisheeye oo cadow ku ah Soomaaliya carada ra'iisul wasaare Roble wax macnaha ma soo kordhin doonto hadiiba uusan gacanta ku hayn xitaa hal sargaal oo ka tirsan afarta ciidan ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa go'aankiisu waxa uu yahay inuu cagta mariyo cid walba oo ka soo horjeesata sharciga iyadoo aan loo aabiyeeli doonin qabiilka uu yahay iyo waxa uu yahay maadaama sareynta sharcigu ay tahay waxa uu madaxweynuhu xoog saarayo mid kale madaxweyne Farmaajo ayaa amar ku bixiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raage inuu darajada ka xayuubiyo sargaalka hogaaminaya ciidamada weerarka ku ah magaalada Beledweyne kadibna la soo qabto oo la maxkamadeeyo sidii ka dhacday magaalada Guraceel 3 bilood ka hor saraakiil la safnid al-sunna wal jamaa oo gacanta dowladda soo galay oo la maxkamadeeyay iyadoo lagu xukumay sanado kala duwan kadib markii ay ku kaceen qiyaaro qaran madaxweyne Farmaajo isagoo aan u fiirinayn qabiil iyo reer toona waxaa ka go'an in ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu gacan culus ku qabto kii ku biira qabiil iyo ururne uu la tigso sharciga u degan dalka dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Xagar Dabageed oo maanta kula hadlay xirada lama galay ciidanka gorgor ee maanta Beledweyne la geeyay ayuu arrimo dhowr ah soo hadal qaaday
dabageed ayaa sheegay in awoodda ciidanka gorgor ay yihiin kuwo uu ku faanayo dalka sidaa darteedna ay ka qayb qaateen xoreynta deegaanada al-shabaab ku sugnaayeen. waxauna madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle sheegay in hadda looga fadhiyo askarta la geeyey magaalada beledweyne inay qayb ka noqdaan sidii uga saari lahaayeen shabaab deegaanada ay weli joogaan gobolka hiiraan. yuusuf dabageed ayaa waxa uusan marnaba soo hadal qaadin ciidankan ay u adeegsan doonaan ka hordaga maleeshiyaadka diidan hirshabelle ee taliya nuur dheere iyo jenaraal xuud hoostaga. madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in ciidanka dheeraadka ah la keeni doono haddii loo baahdo lasoo daabuli doono iyadoona laga keenayo magaalada muqdisho ayna muhiim tahay in shaqada looga fadhiyo kasoo dhalaalaan oo ay dagaalka al-shabaab si fiican uga soo dhalaalaan. madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in ciidan dheeraad ah haddii loo baahdo lasoo daabuli doono ayna muhiim tahay in shaqada looga fadhiyo ay kasoo dhalaalaan oo ah dagaalka al-shabaab. hirshabelle ayaa u mahadceliyey dowladda federaalka ee soomaaliya isagoona sheegay qaybo dambe ee hadalkiisa laga fahmi karay in cid walba oo dowladnimada ka hor timaada la iska dhicin doono. dhinaca kale magacyada xildhibaanada cusub ee maanta lagu soo doortay magaalada Kismaayo waxaana magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Jubbaland lagu qabtay doorashada 3 kursi oo kamid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. xubno ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee SEAT iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa goobjoog ka ahaa doorashada 3 kursi oo maanta lagu doortay magaalada Kismaayo. kuraasta maanta la doortay ayaa kala ahaa hob 126 hob 127 iyo hob 128 waxaana kursiga ugu horeeya ee doorashadiisa lagu qabto uu ahaa hob 126 ka oo ku guuleystay sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Tursiyaad iyo xildhibaan Xasan Xuseen Maxamuud oo helay codad 74 cod halka musharaxii la tartamayay uu ahaa Cabdiraxmaan Macalin Xasan uu helay cod dhan 21. kursiga labaad ee ah hob 127 oo doorashadiisa lagu qabtay ayaa isna ku soo baxay sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland xildhibaan Axmed Aadan Maxamed ka oo helay codad gaaraya 84 cod halka musharaxiinta la tartamay oo ahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xirsi oo helay 16 cod. kursiga u dambeeyay ee doorashadiisa la qabtay ayaa ahaa hob 118 oo ku guuleystay xildhibaan Yuusuf Maxamed Ismaaciil kadib markii musharax la tartamayay uu isaga haray kursigaasi. haddaba halkaa waxaa inoo wararkeennii habeenimo fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena subscribe oo furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid.